qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho taas oo aan wax ka weydiin doono bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kale dhanka kale aan ku jaleeci doono dhismaha laamiga ee ka soconaya qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo dib ay u soo laabanaysa bilicdeedii ayaa waxa iminka la taaganahay mid ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho isla markaana ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya waxaynu weydiin doonaa ra'yigiisa ku aadan in magaalada Muqdisho dib ay u dhismato iyo in laamiyadii magaalada Muqdisho ee barsimaadka dib ay u soo laabtaan taas oo iminka magaalada ay ka socdaan dhismo baaxad leh adigoo ugu horreyn ku bilaabaya magacaaga sidaad u aragtaa dhismaha bilicda leh ka soconaya magaalada Muqdisho Mukhtaar Ibrahim Yunis waxa mahadi ah in aan ka hadlo miidiyaha aragtidayda horta runtii aragtidu waxa weeyaan Soomaaliya anagu waqtiyaal badan oo kala duwan baan soo maray waqti dawladnimo soo maray waqti burbur baan soo maray waqti mataqaanaa the rule of one man ama taliya kooxeed baan soo maray marka waxa weeyaan Soomaaliya maanta ilaahay wahabkiiba ka qaaday culayskiiba ka qaaday horumarkan la gaaray iyo mataqaanaa horumarkan wadooyinka sidii mataqaanaa adeega bulshada sida mataqaanaa waxbarashadii wixii oo dhan baa way hirgeleen anu waxaan aaminsanahay aragtideeduna ay tahay wadanka sida horumarkan imika aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay ilaahayow diintaada iyo dalka ilaahow u gargaar ayaan taaganahay ereygaas iga soo baxo murti aniga ilaahow diintaada iyo dalka ilaahow u gargaar baanu leenahay dadkan muwaadiniinta waxaan jecelahay inay wixii wanaagsan ay taageeraan baa wanaagsan wixii xunna ay diidaan baa wanaagsan bal waxaanu isla meel dhigi karaa warqax iyo dhib iyo aqal dumis iyo mise dawlad midda kale Soomaalidu waxa ku maamahdaa oo dawlad xun dawlad la'aan dawlad xun baa dhaanta dawlad xunna ma hayna imika horumar baan ku soconnaa waa in mataqaanaa muwaadin kasta uu taageeraa ujeedada horumarka dalka sidaasan kaga baxaya waad mahadsantihiin waa tahay daawadayaal weli waxaynu gudaha kaga jirnaa barnaamijkeena Muqdisho iyo maanta oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanayno bilicda iyo horumarka ka jira magaalada Muqdisho iyo sidoo kale iyadoo dhismaha ka jira magaalada Muqdisho taa uu muuqanaysa in iminka magaalada Muqdisho lagu fidinayo laamiyadii taas oo qayb ka noqon doonta bilicda magaalada Muqdisho wax badanna ka tari doonta in magaalada Muqdisho ay ku soo laabato sidii barsimaadka ay ahayd sida iminka muuqanaysaba waxa iminka sida indhihiina ay qabanayaan bal fidinaya laamiga taas oo iminka ay ka shaqeynayaan shaqaale Soomaaliyeed sidoo kale iyadoona arrintan ay wadaan shirkado ka socda wadanka Turkiga sidoo kale dadka waxaynu weydiin doonaa fikradaha kala duwan ay ka qabaan in magaalada Muqdisho dib ay u soo laabatay bilicdeedii taas oo iminka dad fara badan ay u soo daawasho tageen qaabka iminka loo dhisay laamiga wareen adigoo ku bilaabaya magacaaga sidaad u aragtaa dib u soo noolaanshaha magaalada Muqdisho ee marka la eego dhanka bilicda anigoo Maxamed Rashiid May deganna magaalada Muqdisho dhibaatadii wadankan soo martayna goobjoog ka ahaa maadaama wadankeena burburinay haddana wadankeena aan dib aan u dhisanayno waxaan u arkaa arrin aad iyo aad u wanaagsan inaan wadankeena burburino haddana aan dhisanno aad iyo aad ay u wanaagsan tahay bilicda magaaladan inay soo noqoto aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waanu ku taageeraynaa dawladda Turkiga iyo dawladdeena inay maaragtay barnaamijkaas ay u tafxeetaan dadweynahana anaka aan nahay gacan ayaan ku siinaynaa in oo bilicda magaalada dib ay u soo noqoto waa tahay dhanka kale markii aynu eegno magaalada Muqdisho waxa lagu xiray qaar ka mid ah wadooyinkooda samaafaraha kala haga gawaarida dad fara badan dhibaato ay ku qabaan sidii uu fahmi lahaayeen adi ahaan fikirkaaga ku aadan arrintaas samaafaraha waa technology hore u maray wadankeena hore u lahaa dadweynaha waa yaqaaniin in seminaaro iyo wacyigelin darawaliinta gaadiidka loo fidiyo unbay u baahan tahay samaafaraha waa shay nadiif ah oo jira oo maaragtay gaadiidka lagu kala hago oo rinjiga gaduudan hadduu soo baxo gaariga waa inuu istaagaa rinjiga buluuga hadduu soo baxana gaariga waa inuu dhaqaaqaa dadweynahana rinjiga gaduudan markuu gaarigu istaago waa inay dadweynaha ayagan ay maraan meesha oo si ay laanjidka waa ka xiran yahay intaas waay wax dhib oo uu leeyahay Allah warta ma jiraan samaafaraha bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdi Maxamuud Axmed waxa waaye magaca wuxuu u baahan yahay sheegisteedu wax weyn ma aha magac la yeesho Soomaalinimo iyo muwaadinimo loo baahan yahay dalkan dadku waa deeqaa ilaahay iimaan la'aan iyo ibliisa dadka taabtay aad baana waxaan ugu mahadcelinaynaa haddaanu nahay shacbiga Soomaaliyeed dawladda Turkiga
ilaahay khayr ha siiyo horumar weyn iyo nololay dalka Soomaaliya la soo doonatay waa caalamka fidna mar walba dadka isaga dhacda ilaahayna waxa leenahay Soomaali culayska Allah ka qaado Soomaali ilaahay culayska ka qaado Soomaali ilaahay culayska ka qaado wanaaga iyo aqligana Allah na tusiyo in dalka la dhiso dawladda Soomaaliyeed waa ugu hambalyeynayna gobolka Banaadir labada caasimadood haday isugu magac dareen waa duqa magaalada waa ugu hambalyeynayna waxaan kaloo rabnaa inaan maaragtay samaafarayaasha iyo wadooyinka anigu 41 sano waxaan ahay darawal waxay u baahan tahay wuxuu in dadku ay aqoon u leeyihiin hadda nidaam yaroo waxaa jira lagu hiigsan karo sida hadda iskaashatooyinka inay gaadiidka sikuma ay mas'uul ka yihiin seminaar ay sameeyaan in Generaal Cali khayr Allah siiyo ninka taraafikada madaxda u ah inuu sameeyo dadka seminaar loo sheego la baro sharciga istiraadaalaha wasaaradda waa yaala iskaashatooyinkana waa yaala taraafikana waa yaala marka waxay u baahan yihiin in dadka wax la baro oo wax la fahamsiyo maxaa yeelay maanta waxa ama dhibka haaya ama isku haaya ama ii sheeg maaragtay aan Soomaalinimadaba isagoo shaqiiraha yimid wuxuu ku qaan gaaray fidnadana bini'aadamka laftigiisa fidnada isaga laftigiisa ku noqonaya hadii oo shaqiiray hadda qaan gaar hadoo oo ku awlaadaada fidnada ula tagtana wax weyn ma ahan waa dadka in wacyigelin loo sameeyo wanaag loo sameeyo la baro war dalku weydin anfaca dalka adinka iskale dadku waa dadkiini caalamka dawlad kasta iyo dad kasta ayba waxay leeyihiin yacni dalkooda safaaradaha calamada waxa loo suraayo waa aqoonsi waxa dawladdu ay dawladnimo ay ku tahay waa shacabka dawladdu waa adeegayaashana waxa ka rajaynaynaa inay maaragtay ummadan waxay u baahan yihiin ay wax u qabtaan dhibaatooyinka caalamka ka jirana ay la xarbiyaan maxaa yeelay mas'uuliyadii iyaga shalay u dhaartay ninkii shalay inta dhaarta maanta khalad sameeyana ilaahay maalintii yawmal bacth iyaga waa kula xisaabtama wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad u yiriin darwala aad u fiican magaalada ma joogan shirarka aad u badan marka wax badan ayuu noo qabanaya sida dadweynaha wadooyinka markay goonayaan xataa waxa uu soo xidhinaya maxamuud dhammaanbarkaanu waa u badnay baabuurtu kala xagaa ninkaan aqoon iyo ninkii yaqaan wadooyinka kala yaqaan uu kala sheegaya ninkii yaqaan waa yaqaanaa ninkaan aqoon waxaan ka codsanayaa inuu guduudkaas iyo cagaarka iyo buluuga oo kala yaqaan عمر الشيخ عبد الله يا ليدها سما فراس جانا وقنا عسلنا ورمر لسي جاري دون واي waxaan soo haysanaa waagii nabad oo maaragtay xilliga wadanka maxamed siyaad barnaamijtay si wanaagsan oo qanacsanaa insha Allah faraxsanahay sama faraan oo ah nidaamyaha wadooyinka sida qaabka loo baro wuxuuna socodsanaya bariisamaadkii Allah waxaan rajahay inay bartaan oo nidaamka iyo qaabka loo baro wadooyinka inay bartaan waa rajahaya dadkuna hadda 23 sano ay ku dhex jireen qob iyo qaac marka waxaan rajahay inay nidaamka ay la qabsadaan ay la socdaan qaab waana horumar laakiin waxa muhiim ah gaadiidka darawaliinta wada inay fahamsan yihiin calaamadda joogsada midda soo socda midda leexada in la fahamsiiyo oo darawaliintii hore oo ama teersa garaada ahayd ama sugunta garaado oo fiisha baraaba darawalnimada ka soo qaadan jiray oo laysinkooda sharciyada ku baysgaraysnaa ma aha darawaliinta burburka dambe ma fahmayaan calaamadda dhinjarka oo taagan oo istabta iyo midda leexada ah iyo midda ka joogta hakadka iyo midka xawaarihiisa looga xisaabtamayo in la fahamsiiyo oo laga hormariyo darawaliintu inay fahmaan sama fara sheegnay madax iyo shacab waa loo sameeyay sharciga naga wada weyn sharciga na deeqo madaxdu waa sharciga dadka keenay waa iyaga keenay marka madaxdii keentay inay jabisana waxa waaye waa shacabku kaliya sharciga ma qabto sharcigaas waa nagu wada filan yahay waana wada deeqdaa madaxda ugu sarreysa wadanka waxay diyaar u yihiin sharciga inay ilaaliyaan okay loo baahan yahay idaacadaha iyo telefishinadu inay barnaamijka siiyaan oo la sii daayo oo dadkan loo sheego in gadiidku yahay qasocon in cagaarku yahay waa socon kartaa in jaalaha uu yahay digniin oo markii socod bilowga uu soo bixi doono jaalaha kadibna uu guduudku ka dambayn doono markii guduudku soo baxana waa la istaagi doonaa way dhici doontaa inaan midkaan mid ka sii heer sarreeyo u gudubno bal horta kan aan baroobayno dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ayagu sharcigii noqdaan
cidda ku xadgudbaysa dadweynaha ayaa cid walba ka awood badan waxaad arkaysaan baabuur ciidamo seeta iyo istaafya saaran yihiin oon u aaba yeelayn dadweynaha laga rabaa inay ku qayliyaan oo ay joojiyaan oo ay u digaan oo kii ka diida inay xayayaan dadweynaha looga baahan yahay arrinta noocaasa dadweynaha marti ugu nahay inay nidaamka nala soo celiyaan saxaafadda waxaan marti ugu nahay inay macluumaadka ku saabsan samafaraha ay ka sii daayaan oo ay saacado u huraan sidii dadka loo wacyigelin lahaa dhaqan gelayaa 24 saac ka bacdi xaawataaka wuu shaqayn doonaa faa'iidada ay bulshada ku qabaan waxaa badbaadaya dhiiggii iyo dhiidkii askarigii baabuurta kala hagay wuxuu helayaa qofku adduunyada markuu u gudbo samafare inuu la qabsan karo inta Soomaaliya ka tago oo Rooma tago dhismaha laamiga iyo samafarayaasha iyo markaan arkay wanaagga ka socda iyo dalka dhismihiisa ayaan waxa iska keenna qaaday wadaniyad halkaas aan kula kulmay markaan telefishinka waxaana ka leeyahay laamiyada degdega dumariyo rago derise inta wada duqma muuliyo gudida cadada markii la isku daaray dalku durugiyo misna duuliyo dayaxiyo daroortan badaba marno madaxweynayaashay waxa la jiro xidiga dushaadan bawaada degnaa laamiyaasha la dhisay waxaan u arkaa waxyaabo aad iyo aad u wanaagsan oo ah in wax lala qabtaa markii wax lagu bilaabo waxa la doonayaa deewan meesha lama fadhiyeen adaguna wixii ka dhiman ku darsataa waana si fiican ayaa loo fahmay samafarayaashu 5 maalmood amal xiran yihiin hadda waa la sii fahmayaa oo dadku waa ciyaalka yarar baa ku sheegay oo kale kan hoose waa soco kan dhexe waa digniin kan korona waa oo dinjarkaana amba guluudka amba casaankaana waa taagni marka waa la wada bartay samafarayaasha dhismaha laamigu aad iyo aad ayuu fiican yahay
dadka shaqaynaya ee isugu jira Soomaalida iyo ajnabiga aad iyo shaqada loo wadaa waxaan la yaabanahay shaqo laga rabo xama 8 saac iyo 4 saac amal anaga Soomaalida waxaan ka rawaxnaa 4 saac tagna shaqada 6 saacna waa ka tagnaa 2 saac kaliya la fadhiya balse waxa qiyaas qaadasho aad iyo aad u wanaagsan dadkan soo gal halka saac subaxnimo kana taga 12 ama 6 maghribnimo aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa wixii soo qalqaliya intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal barnaamijkeennii Muqdisho maanta todobaadkan oo aynu ku soo qaadanay dhismaha laamiga ee ka socda magaalada Muqdisho oo kamid ah bilicda magaalada Muqdisho ee ku soo kordhaysa caasimadda waddanka Soomaaliya ee Muqdisho iyo sidoo kale samaafarayaasha lagu xiray qaar kamid ah wadooyinka magaalada Muqdisho taasoo in fara badan barnaamijkan uu qayb ka noqon doono in dadka ay fahmaan qaabka loo isticmaalo samaafarayaashaasi tan intaan ku kulmayno barnaamijkan todobaadka xiga Cabdisaaq Miro Dhooro idin leh sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh midnimadeena